waxaan rabaa xogaa yar inaan warbixin ka siiyo safarkaygii doraad aan ku tegay magaalada Marka. magaalada Marka horta waa magaalo taariikhi ah, magaalo aad iyo aad u qurxoon weeye. haddii ay hesho dawlad wanaagsanna bilicdeeda iyo quruxdeeda loo isticmaali karo ama laga dhigi karo magaalo dalxiis. maxaa yeelay daaraha ku yaala historic buildings ku yaala waa runtii waxaan ku faani karna waay. waxaan aamsanahay hawshii ay qabteen awooyaasheen weeye inaan dib u soo cusboonsiino oo aan dib u qurxino waxyaabaha marka aan ku arkay oo runtii iga yaabiyay oo meel walba oo de Soomaaliya ka tirsanna ay ka jiri karaan waxa weeye arrintan markaan furnay wasaaradda waxbarashada goodax ayaan dhaweyd oo aan la soo wareegnay iskuulada faraha badan. ciyaal yar yar ah oo aan ku arkay waxay ii sheegeen waa la socdaan inaan iskuuladii la soo wareegnay. waxay yiraahdeen goorma annaga iskuulo halkan looga dhisayaa. goodax shaqa ku taala marka ciyaalka ilmaha caruurteena jooga magaalada Marka iskool ma dhigtaan. nasiib darra ku dhacday waxay ahaayeen mujtamac korkooda lagu dagaalayay muddo dheer. alxamdulillah waxaan geenay ciidamo wanaagsan, ciidamo badanna waa geen doonaa. magaaladaas gacanteennay ay ku jiri doontaa insha Allah hadduu Ilaahay yiraahdo. maxaa yeelay waxaan xasuustaa 2013 yaa magaaladaas la xoreeyay. 2013 ilaa 2016 February magaalada cid xukuntay ma jirin. qayb Amazon baa ka fadhiday, qayb SNA yaa ka fadhiday, qayb shabaabka ka fadhiday, qaybna waxaa ka fadhiyay beelo ciidamo beeleed yaa ka fadhiyay. marka isma gelin mujtamaca meeshii deganaa marka waxay ku jireen hostage meel ay aadi karaan ma jirin. February 2016 yaa waxaa la wareegay magaalada maamulkeedii shabaabka ilaa anagu 2 bilood ka hor aan ka furnay. macnaheedu waxay tahay dadkaas shacabka dhibaatada haysataa waxay haysataa meel walba shacab Soomaaliyeed ay joogaan dhibkaasay qabaan. waxay sugayaanna waa dawladooda oo idinka ah. marka goodax waxaan ku weydiinayaa ama ka codsanayaa usbuucyada soo socda inaad tagto meeshaas in iskuuladii dawladdu lahaan jirtay dib loo soo celiyo, isxilqaan la geliyo oo shacabku dhistaan, waalidiintu ay dhistaan. maxkamadaha wasiir saas oo kale adiga iyo goodax iyo wasiirka amniga Israaca taga meesha soo asaas gareeya maxkamad in meesha laga establish gareeyo laga sameeyo si magaalada nidaamkeedii iyo ay u shaqeyso. booliiska sidaas oo kale weeye federal police badan ma joogin inaan geeno federal police niisa naftigeeda nabad sugidii inay tagto oo day xuuraanto waxa meesha jira. waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa ummadda Soomaaliyeed waxay sugayso waa idinka. nasiibna waxaad u yeelateen inaad noqotaan hoggaankoodii. macnaheedu waxay tahay inaan ka soo dhalaalaan la rabaa marka ummadda waxay sugaysaa inaan u shaqeyno si daacad ugu shaqeyno waxa laga soo aruuriyo amaanadooda u ilaalino qof alla qofkii khalad galana aan loo dul qaadan.